بسم الله waxaan ku ballan qaadayaa ilaahay idinkii xanuunada aad ka cabanayso inay ka zuuli doonaan ma ballan ba qaabka aan ku dhaho samee inaad sameynaysid ma ballan ba insha Allah taala waqtiga aan ku dhaho wad inaad wadaysid ma ballan ba inaadan daalayn ma ballan ba inaad ka xorowdo in aad rabto xanuunka iyo dhibta ku haysto haddii jawaabtaadu haa tahay ilaahay idinkii waxaan ka hadlayaa walaalaha ruuxiga ka cabanayo ama haday il tahay haday sixir tahay haday jin tahay jinku waa qaybsama ruuxaan haday tahay dadka wax laga uumiyo haday tahay ma ballan ba adigu ma tahay jawaabtaadu haa in aad ka xorowdo dhibta ku haysto haday jawaabtaadu haa tahay qodobadan samee qodobka ugu horeeyo waxaad laazimtaa waysada qodobka labaad waxaad laazimtaa subax kasta iyo galab kasta inaad akhrido qul walla 3 jeer qul a'udhu birabbil falaq 3 jeer qul a'udhu birabbil naasna 3 jeer subax iyo galab xagga iska dhig waa weyso iyo adkaar samee sidan soo socota marka soo qaado miskul aswad maxaa la yiraahdaa waa miskiga ama waa cadarka aad u jeedaan shadaadiinta qaada sixirka ama qaado maxay ahayd ama ruuxaanta way dhibsadaan oo way ka gubtaan maaridka iyo cirfiidka iyo dhammaan shadaadiinta oo dhan ayu jaan oo dhan cadarkaasi waa gubaa ilaahay idankii waxaad akhrinaysaa sidan soo socoto waxaanad ku sameynaysaa sidan soo socoto kow soo qaado saliid zaytuun qofka haysta saliidda shifadana kasii fiican oo kasii fadli badan maxaa yeelay kumanaan ruux ayaa ka mahad sheeganaya soo qaado saliid zaytuun soo qaado miskul aswadka agtaada dhigo saliidda ayaa waxaad sameynaysaa miskul aswadka qaadada qaxwaha midda yariista ah ee isbuunka lagu talagalay yar oo buuxda ayaa waxaad ku daraysaa rubuc saliid zaytuuna haddaba la fahmay kiilada markii 4 meelood loo qaybiyo meel kamid ah ka hadlaya kiilada 1 kiilo oo saliid ah 4 meelood u qaybi meel kamid ah ayaad rubuc ayaad ku daraysaa qaadada soo buuxdo kadibna waxaad ku akhrinaysaa aayadan kadibna waxaad ku xijin doontaa suuradahan si fiican ii dhageyso waxaad ku akhrin doontaa aayadan waxaad ku xijin doontaa suuradahan ilaahay idinkii waxaad ku soo khatimaysaa sida soo socota iyadana kow waxaad ka bilaabaysaa wa xifdha min kulli shaytaanin maarid qisadii labaad aan idiin waday hooyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maarid ka kaxeeyey kana burburiyey sixiradii masaabiirtan ilaahay uu ka saaray sida ay samaysay waxay ahayd inay cadarkaana saliidda ku dartay kadibna ay qur-aan ku akhrisay ay ismarisay sidan samee markaa saliidda soo qaad cadarka ku dar kadibna ku akhri wa xifdha min kulli shaytaanin maarid 100 jeer iyo wax ka badan oo adiga aad intaad awoodi karto ku akhri wa xifdha min kulli shaytaanin maarid wa xifdha min kulli shaytaanin maarid wa xifdha min kulli shaytaanin maarid mar walba akhrida ama 10 mar aad akhrisana kutub saliida insha Allah taala inta marka aad samayso waxaad number 2 ku xijinaysaa qul wala 3 jeer qul a'udhu birabbil falaq 3 jeer qul a'udhu birabbin naas 3 jeer falaq waxaa kaloo suuratu naas markaad marinayso min sharri alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas labada aayadood waxaan tajribeeyey shadaadiinta inay gubaan maxaa yeelay ilaa shaydaanka qofka meesha uu ka dego waa qalbiga kadibna ka waswaasiyo oo ka murjiyo oo ka oohiyo oo qofka sugnaansho la-aan meesha uga rido waa qalbiga alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas 1,000 jeer iyo ka badan 100 jeer iyo ka badan ku akhri saliida inta marka aad samayso waxaad ku soo khatimi doontaa ducadii nabiga sallallahu alayhi wasallam subaxina uu dhihi jiray galabtina uu dhihi jiray ee ahayd ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi darfata ayn ducada ku gabagabe khatimka ugu dambeeyana saliga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo 10 jeer ka dhig kow wa xifdha min kulli shaytaanin maarid labo falaqiya naas meesha ugu dambeeyay min sharri alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas saddexda aayadood ugu dambeeya ama waliba labada aayadood aad ugu celceli min sharri alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas ku celceli ilaa 300,000 inta aad awoodo kartidaadu inta ay tahay qofnimo inta adiga aad awood u leedahay
كدبنا يا حي يا قيوم دعاء آخر دعاء وتاكو موقت سلق النبي صلى الله عليه وسلم توجر كو ختم waxaad samaysaa saliidaas tan ilaa cidho marso ka bilow dhalada madax halkaa ka bilow halkaa ka bilow halkaas baad ka bilaabaysa tin oo dhan baad jirka oo dhan baad marinaysa intaa marka aad samaysid waxaad samayn doontaa insha allahu tacaala aayaatul cadaab laga gasho say u gubaan kuwan ay u gubtaan oo u tamar beelaan oo dib dambe aysan kuu dhimin aayaatul cadaab insha allahu tacaala gasho dhagaha ilaahay idinkii waad ku caafimaadaysa ilaahay idinkii waad ku caafimaadaysa ilaahay idinkii waad ku caafimaadaysa muddo wad ilaa aad ka caafimaadana ha joojin hay dhihin ma hal isbuucba ma laba isbuucba hal isbuuc iyo laba isbuuc midna laguma dhalin hal isbuuc iyo laba isbuuc midna hooyada uurkeeda kamaad soo bixin samee dadaal fara badan waanad ku liibaanaysaa insha allahu tacaala allah idin barakeeyo duruustiina saasay ku bilaabatay insha allahu tacaala birina clipka labaad xigo filo insha allahu tacaala qofkii raba inuu dadku waxay isweydiinayaan maxaan kaga qubaystaa waraaqaha al-shifa laga soo gato waraaqahaas tahliisha al-shifa meel ku taalaba laga soo gato insha allahu tacaala kadibna tahliisha waxaad samaysaa intaad biyo ku rido ama adiga tufo aayadihii inta aan kuu sheegay tufo kadibna kaga qubaysa insha allahu tacaala mahadsanid meel kastaad joogto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.